gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa kormeer indeen iyo shaqada ka socota ku tagay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. halkaasna waxaa ku sugnaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar, agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir iyo maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar ayaa warbixin guud ka dhigaysay wasiirka iyo agaasimayaasha ku saabsanay shaqada loo qabtay dadweynaha maadaama maamulka guud ee caafimaadka gobolka uu mas'uul ka yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. intaas kadib gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo xubnaha kale ayaa kormeeray dhammaan qaybaha kala duwan isbitaalka. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar ayaa duqa Muqdisho waxa igu warbixisay shaqooyinka isbitaalku uu bixiyay iyo waxyaabaha ka dhiman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحساك اسبتالك بنادر هويدا دلانكا مقدشو نغو سو بوقدي قدوميها اهنا غوبرناتورها gobolka Banaadir gudoomiye Cumar aad iyo aadan kaaga mahad celinayna adiga iyo howlwadeenadaada waxaan la joogo Cabdullaahi Cusmaan Hormuud Foundation agaasimaha isbitaalka agaasimaha ku xigeenka howlwadeenada dhamaantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudoomiye aad iyo aadan ugu faraxsanahay maanta inaan soo booqato isbitaalkan. waa isbitaalka qaran ee hooyada iyo dhallaanka meel walba oo Soomaali ay ka yimaadaan waxa lagu daaweeyaa oo runtii ka faa'iideysta dadka danta yar ee Soomaaliyeed dadka yimaada xirxiryaha IDP-da dad aad yani dhaqaale ahaan u liita oo isku si loogu daaweeyaa. waa isbitaal runtii culays weyn ka furay ummad badan oo Soomaaliyeed ay ka faa'iideysatay. waa isbitaalada danta guud ee wasaaradda caafimaadka ay gacanta ku hayso. saasuu yahay waxaan rabnaa in ma aragtay bulshada oo dhan isugu imaado. waxaan ku soo tusnay meesha ilmaha dhallaanka markay dhashaan ee dhiciska ah lagu xanaaneeyo. waa kaalmo ka timid dibadda iyo dad badan oo yani Soomaali ah ay isugu tageen. waxaan ku soo tusnay meesha caruurta loogu talagalay oo jaamacadaha iyo dad badan oo mutadawiciin oo Soomaaliyeed ay tabarucaad ku sameeyeen. isbitaalka wuxuu ka socdaa yani dad Soomaaliyeed oo isku tashtay. waana dhiirigelinaynaa mar walba inaan u naxno aan ka fakarno dadkeena danta yar. waajibna saaran waaye waa shaqadeena laakiin waajibna saaran Ilaahay dartiis. waxaa hadda nala jooga Cabdullaahi Cusmaan Hormuud Foundation Salaama Foundation. waxaa la furayaa mardhow waxay keeneen ku yani deeqeen isbitaalka warshada samaysa oxygenka. aad iyo aadan rabaa inaan ka faa'iideysto ugu mahad celiyo Cabdullaahi iyo Hormuud iyo Salaama Foundation guud ahaan. waxay furaysaa culays weyn oo magaaladan saarnaa sida la socotid hirkii koowaad hirkii labaad iyo kan hadda saddexaad oo rajaynayna inuu sii dhamaado. dhibaatada ugu weyn ee haysatay isbitaal Martiini iyo isbitaalkan iyo isbitaalkii Simad oo iyagana jaamacadda Simad aad noo kaalmaysa Sumeyd. waxyaalihii ugu badnaa oo caqabadaha ahaa waxaa kow ka ahaa in dadkeena aan u leen oxygen oo habeen walba aan ka fikiraynay dadka markay nambarka soo bataan intee la geyn doona. culaysay naga fujiyeen. aad iyo aad u mahadsan yihiin walaalaheen. sidoo kale dahabshiil iyadana Martiini ay keenaysaa waa timid dekada waa soo gashay. waa dad Soomaaliyeed oo isku tashay. mar walba lagama fikiri karo macaawino banaanka kaaga imaaday inay ku haqabtirto. umadeena ummad badan oo waxaa jira aanan awoodin isbitaalada private inay aadaan. private waa lagu aflaxay dad badan ma sha Allah. laakiin inaan helno dadka aad u danyar aan awoodin inaan xal u helno sidaan u daaweyn lahayn ha ahaato caafimaad ha ahaato waxbarasho. marka waxaan rabaa in qof walba dawladda kamid ah aragiisa uu ku soo jeediyo war dadkaas yaan ku dhaafaynaa ee dawladda dhan isku duubnaato ee laga fikiro caafimaadka iyo waxbarashada dadka Soomaaliyeed. cunug waxbartay oo caafimaad leh ayaa bulshada hore u wado. bulshadeena waxay u badan tahay dad dhalinyar haddaanan ka fakirin caqabadihii waa sii kordhaya. marka gobolka Banaadir waxaan ka rajaynayaa in gacan weyn ay ka geysan doonaan. waa ka soo qayb qaateen ilaa iyo markii dawladda si toos ula wareegtay wasaaradda caafimaadka. waxaan idinka rajaynaynaa inaad sii xoojisaan ay sii socoto. marka cid walbo ka shaqaysay aad iyo aadan ugu mahad celinaa. soo dhow waa mahadsantahay. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa ugu mahad celiyay maamulka isbitaalka iyo wasaaradda shaqada adag ay u qaayaan bulshada iyo cid allaale ciddii ka qayb qaadatay horumarinta isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. maantay waa Ilaahay mahadiis
وفرحة ريرين نوتهاي إن مانتي بوغشو كوني مادو إسبتالك بنادر أو إساقو أقارك هويد إيه دلانك runtiina aan taariikh ahaan ognahay waxa uu soo qabtay isbitaalkaanu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda taagta daran muddadii burburka muddadii dhibaatooyinka gaarka ah ay jireen ama ha ahaado COVID-19 ama ha ahaado daacuunkii ama ha ahaado yacni caqabaadkii kala duwanaa macluushii oo uu la kulmayay dalkeenu runtii isbitaalkaanu ma leh مثل loo dhigo la barbar dhigi karo ama dalka ama magaalada Muqdisho gobolka Banaadir intaba waxa aan aad ugu farxay runtii isbitaalka Banaadir oo inkastoo dhaqaatiirta ka shaqeysa ay mar walba dadaali jireen haddana horumar weyn isbedel fiican yani ildoogsi iyo bukaan يعني داوديسي iyo daryeelkiisi helaya ee si habsamay uga socdaan waxyaabana farxad galiyay ayay kamid tahay waxa runtii aanan ilaabi doonin caruurta aan ku booqanay maanta isbitaalka oo dhammaantood caruur aan dhamays ahayn oo bila dhamays aan ahayn oo mataqaana sababa kala duwan dartood dhiciska u daryeelka loo sameeyay hay-adda dhistay qaybtaas iyo qalabaysana si gaar ahaan ugu mahadcelinayna runtii dadaal la sameeyay ha ahaato wasaaradda caafimaadka ama ha ahaato maamulka isbitaalka ayay taasina ku suura gashay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sukow waxaan rabaa in dadaalkooda ay sii wadaan maadaama mirihii dadaalkooda maanta uu muuqdo waxaan rabaa inaan si gaar ah ayagan ugu mahadceliyo yani كمبانيga la yiraahdo Hormuud Foundation oo meel kasta oo baahida bulshadan ay ka taagan tahay yani mar walba la garab istaagan kaalmo iyo gargaar ha ahaato gacantii weyneyd markii khalkhalka caafimaad uu ku yimid isbitaal Martini ay garab istaageen ha ahaato xarumaha ama dhismooyinka waaweyn oo isbitaalka Banaadir ay u sameeyeen oo dhinaciga midigta hadda ka muuqanaya ha ahaato warshadii oksijiinka oo ayagu hadda halkan intay ka dhiseen warshadii rakibitaankeedii lagu guda jiro intaas kaliya ma ahane qayb kasta oo bulshada Soomaaliyeed u baahan tahay wax u qabadkeeda ayay kaalin lama ilaabaan ku leeyihiin arrintaasi waxay xujo ku tahay kambaniyada kale maalqabeennada ee dalkan ka shaqeysta aan ognahay waliba horumarka in qaarkood ay negative ku yihiin ama opposite ku yihiin ayay xujo ku tahay inaad shaqeysato waa lagu ogol yahay waana kugu garab istaagnaa maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda Soomaaliyaba laakiin bulshadii danyarta ahayd waxaad ku soo celisaa lagaaga fadhaa kaalinta reer Hormuud mid lamid ah ayaa looga fadhiyaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa localka ah dadkeena danyarta wax tara waan uga mahadcelinayaa balse waxa anigu aan rabaa ku qanacsanahay waxa ay tahay bulshadeena Soomaaliyeed contribution-kooda ama qaaraankooda wax badan tare inay ayagu ay isku tashadaan waxaan aaminsanahay annagu fahamna inaan isku tashano inaan baahiyaheeno dhan aan daboolan karno ahaato yani kaabayaasha dhaqaalaha oo wadooyinkii waxaas oo aan dhisano danyarteeno aan garab siino ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waxa quraankiisa uu ku sheegayaa marka aad wax samafal samayso ilaahay inuu ku toban jibaaray taasna waa u jeediino samafalka waxa ugu horeeya reer Hormuud oo fakhriso ma aragteen maya ma rajaynaya inay fakhriso inay sii bulasho marka ilaa u tabanlaabaya yani hore u socdaan sababtoo sadaqadoodaas iyo daryeelka dadkooda ay u taagay anigu waxaan rabaa wixii jira inaan sheegay xayeysiiyay Hormuud waxaan rabaa ma ogtahay xaqiiqda in la sheego marka
haddii uu jiro kambani intaasoo kale qabtay ayagana ma xaqiraynay waa sheegaynaa wa amaa binicmati rabbik faxadith nicmo ilaahay oo qalbigooda ilaahay ku soo riday oo bulshadooda ugu adeegaya yay tahay cidda laga haysto marka oo mataqaanaa bulshadiina u adeegin la dhahay cid kasta saasaan ka rabnaa kaalintaas muuqata oo ay soo gaareen maamulka isbitaalkana waxaan rabaa inaan ayagana si gaara ugu mahad celiyo maxaa yeelay waxay muujiyeen yacni karti aqooneed iyo ka go'naasho ayay muujiyeen isbitaalka banaadir madaxdiisa oo aan ogahay yacni maamulaha isbitaalka fartuun yacni qoyska ay ka dhalato hooyadeed aabaad iyo deris ahayn waa aqeen marka miraha geedka ka baxa geed wanaagsan miraha kale waa ka macan marka waa alxamdulilah dadaalkiina sii wada allah idinku guuleeyo annagana wixii aad noo soo gudbiseen oo baahayaha isbitaalka ah oo annaga karaankeenna ah ma la soo daahi doono haddii alla idmo waxaan rajaynayaa marka inaan ku tartanno wanaagga iyo horumarka iyo cuqabadka bulshadeen dawladdu waxa ay u adeegtaa oo mataqaanaa ay wakiil gaar ah ka tahay kuwa danyarta ah kuwa u baahan adeeg mararka qaarkood waxaad arkaysaa xafiisyo badan oo dawladeed oo dadka danyarta aho aysan bacalaf ku lahayn oo ay adag tahay in macnaha ay tagaan ama adeegyo loogu qabto ay adag tahay marka isbitaalka banaadir oo isagu u taagan yacni si free ah ama bilaasha inuu bulshada ugu adeego taasaa mataqaanaa kaalin weyn ah oo dawladeed oo dawladdana sharaf u ah faanna u ah dawladdaa gacanta ku haysa iyadaa lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka usii qaabisheen wasaaradduna waxay u xulatay ciddii ugu habboonayd marka ma raba inaa warka ku sii dheeraadee maantay waxaan aragnay waxaan ku qanacno bulshada soomaaliyeedna mataqaanaa qaybta ugu muhiimsan ee iyadu qabsatay waxaan rabaa markaa wax kasta ayaan sidaan iyo si ka fiican usii qabsan karnaahe aanu isku tashanno intaasaan dhihi lahaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat